waxaa ciideekis Banaadir Stadium ku coltamaya kooxda cimaalaqada cad ee Waaberi oo ku taamaysa in ay qaado xagaagan koobkeedii saddexaad iyo bahweynta Dharkeenley oo taajka koobkan lagu boqoray 2011 oo aysan arag wax kooba tan iyo gool uu ku quusgooyay barbaarta Yakshiid ciyaaryahan doo ahaana kubadlaad xora degmada Dharkeenley waxaa 2 sano ka hor wareegga rubucdhamaadka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ku dubatay degmada Kaaraan Rigoorayaal halka sanadii ina soo dhaaftay tartankan qaybihiisa dambe ay ku seegtay ganaax kaga yimid gudida tartanka kadib markii ay jajabiyeen kuraastii ku camineed qaybta Kataangaha ee gigida jaamacadaha hase yeeshee waxa ay marwada gabowday ee Dharkeenley sanadan u muujisay Waaberi in ay tabareysatay iyaga oo telefoonka saaray degmooyinka Shibis iyo Xamar Jajab oo tareenka kaga tuuray rubucdhamaadka iyo nusdhamaadka tartanka dabcan way adkeed in kooxi guule ay ku soo baxdo 90 daqiiqo ee semifinalaha tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo geerkeedii lagu noqay kooxdii degmada Xamar Jajab ciyaar faraha la soo gubtay oo ka dhacday gigida Engineer Yariso oo ahaa kulankii u dambeeyay labada cimaalaqo ay iskula dhagaan seegta finalaha sanadkan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir balse Rigoorayaal 4-2 ay guusha ku raacday kooxdii sidatay magaca Dharkeenley haddaba silmida finaalkii gugii hore ee Shibis iyo Waaberi ay ku faltameen Konis xilli habeen ayaa waxaa mar kale dhici karta in kooxda Waaberi ay calmato koobkan tiyo ay jirto haddana Waaberi ayaa la daalaadhacaysa dhaawacyo kaga dhacay laacibiin kaga dhigan qaar ka mid ah dhuuxa lafdhabarta kooxda macalinka waaya aragga ee Deeq Baado ayaa ku tala jira in uu bedelo shax uu kooxdiisa ku dagaalgelinayo uu ka dhigi karo 4-4-2 taas oo ah mid dheeliga ka saari karta qaab dhismeedka kubadda kooxda gaar ahaan markii uu kal hore ku wajahay degmada Shibis isagoo xasuusan in qidadan ay ahayd tii uu meel ku saaray kooxda fakfakadka badan ee Xamar Jajab FC weerar ahaan waxay sare u eegayaan ninka gool ugaarsiga ku fiican ee reer kooda Maaj Cusmaan oo bariyahan ay u saarneen isagoo marqaati u haysta in 3 gool uu dhaliyay 5 ciyaar ee u dambeysay waxaa sidoo kale Waaberi ay quudareynaysaa in uu qayb ka noqdo safkooda qanaaska lambarka 17aad ee Wazaza kaasoo ah laacib xebeed kana yimid magaalada Kismaayo laacibka ay ku duushay Dharkeenley Kabtan Faarax ayaa markii ugu horeysay kooxdiisa la gaaray kama dambaysta koobkan waa nin hankiisa iyo hamigiisa uu yahay ka dhabeenta haya maalmeedka cid kasta oo ku abtirsata magaca degmada Dharkeenley ay ku jirto waqtigan yeelkeeda cawo kasta ciid ma ahan oo waxa uu markaan kabtanku madaxa la galayaa daafaca bakhaylka aan biyadeyska badneen ee Waaberi hana hilmaamin waa gaashaandhigii u babacdigay barbaarta dariskooda ee Xamar Jajab oo 90 daqiiqo ciyaarta aan wax kooba shaah firiq laga siin iyaga oo kumanaan taageerayaal ay marqaati ka ahaayeen in dharaar cad la kala diray Xamar Jajab oo wadatay miisaankii ugu cuslaa xagaagan ciyaartoy taageerayaal iyo maamul uu horkacay gudoomiyaha degmadaasi Guhaad Sheekh Xasan waxaa biseelka iyo qaangaarka degmada Dharkeenley ka dhaadhacsan ka sheekay kabtanka degmada Jaalle Faarax Cumar Suleyraan oo loo yaqaan Sergio misla sheegay in haatan yaqiin ahaan ay aad ugu duwan yihiin kooxdii sideedamaadka lagu tumay 2017 iyaga oo iminka doonaya inay soo afjaraan jilaal koob la'aana oo ka haystay koobka degmooyinka gobolka Banaadir 8 sano ee la soo dhaafay xilli toddobaadkan ay la ciyaari doonaan kooxda Waaberi oo iyana semifinalaha tartankan ka soo adkaatay degmada Shangani walow Dharkeenley ay dareensan tahay in koobka degmooyinka gobolka Banaadir ay kaga baahi badan tahay dhigeeda Waaberi misne waxaa hubaala in guusha aan la isku siinaynin garasho iyo hebel ayaa istaahila waayo sheekadu waa dhadhan shawaalan dhargaana ka daran oo waxay cimaalaqadu jaalayaasha Waaberi doonaysaa inay qaado koobkan kadib markii ay soo gaartay finaalkeedii 5aad oo xiriira iyadoo doonaysa inay dhigto sheeko xiriir aan dhicin tan iyo koobkan markii dib loo bilaabay dagaaladii sokeeye ee dalka oo ah in kooxi ay gaarto 5 finaal oo xiriira kooxda Waaberi waxa uu dhoolla cadeynaysa taariikhda koobkan oo badanaa ay gaarto kama dambaysta si ka duwan Dharkeenley oo aan u nasiib badnayn sida Waaberi oo ay ka yartahay gaarista ay imaatanka finaalaha koobkani waxaad moodaa in labada koox ee faltamay ay yihiin kuwa chemistry ahaan kala gedisan marka ay timaado qaabka ay ciyaartu u wajahayaan waayo kooxina waxay leedahay gaashaandhigga ugu adag kooxina gantaalaha ugu tiirada dheer waxaana kaaga filan adiga oo qooraansada tirada koobka degmooyinka gobolka Banaadir ee kala ciyaareedkii la soo dhaafay iyagoo isla soo gaaray heerkii ugu fiicnaa iyo heerkii ugu xumaa balse markan wada jooga finaalka ciyaaraha degmooyinka walow
ay ciyaartu guulaysan karto kooxdii hanata miisaanka u dhaxeeya weerar iyo difaac, guulaysi iyo xakamaynta ciyaarta, taasoo u baahan caqli iyo awood midaysan. degmada Dharkeenley waxay dhigeeda Waaberi doonaysaa inay ku disho raacasho dhow oo ay neefta ku dhibi karto kooxda cadowgeeda, halka Waaberi iyana ay doonaysa in ay baaska ku dhaqsato si ay kaga baxsato raacashada rafta ee Dharkeenley. waana halis marka ay wajahayaan koox ciyaarta qaab dhismeedka tikataka. tusaale ahaan guuldaradii ay biday Yaaqshiid iyo Shangaani, Waaberi ayaana maanka ku haysa inay doonayso inay noqoto kooxda qura ee 3 jeer oo xiriira ku guulaysata tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. wiilasha Macalin Deeq Baado waxay u muuqdaan kuwa heerkoodii ka soo kacay halkii ay sanadii hore ay ka joogeen tartankani, balse weli waa koox laf dhuun gashay oo dhib badan marka ay timaado u tartamida oo ay koobabku si wanaagsan u fahmeen. sida la hubo waxay leeyihiin difaac adag kooxda degmada Waaberi, balse koox kastu waxay leedahay meel ay ka liidato. waa inaan hulinaa oo aan helnaa meel ay ka liitaan si aan gulal ugu horgufno. sidaas waxaa yiri macalinka koobkan ku cusub ee Deeq Baado. si kastaba sheekadu waa ahaatee, magaalada Muqdisho ayaa martigelinaysa sanad walba hadaha oo kale mid ka mid ah ciyaaraha maxalliga ee ugu xiisaha badan dalka, waana tartanka degmooyinka gobolka Banaadir markii saddexaad xilli habeena la filayo inay isku herdin doonaan degmooyinka kalaha Waaberi iyo Dharkeenley oo toddobaadkan sida maamulka isboortiga gobolka Banaadir ay shaaciyeen in ciyaarta finaalka la ciyaari doono.